ugaas Ismaaciil Cabdi Hulul oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa taageeray hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliland ee la xiriira ilaalinta jiritaanka Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri dawladda Soomaaliya hadalada ka soo yeedhay ee taagta daraadeed waxaan u soo qaatay boosh ka xareeyay markaan dawladnimada dhashanay ee la soo noqonay xuquuqdeena iyo xaqeena sidaa daraadeed dawladda taagta yar waxaan isaga waxba waxayna container ku jira oo waxba ka ahayn xamar gudaheeda ayuu Soomaaliland soo aflagaadeynaya oo kolba wax ka sheegaya dawladda Guinea Bissau leeyahay xiriirkii waan kala noqday waan muxuu la leeyahay waxba ma lehe container buu ku jiray dawladda Guinea Bissau waana maanina madaxweynaheeda wasiirka arrimaha dibadda dhammaan wada maanina madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan aad iyo aad ugu amaanina safarka ugu baxay Guinea Bissau safarkaas soo dhaliyay guulo balbalaaran oo wanaagsan oo aad iyo aad aan ugu faraxnay madaxweyne anigoo xisbiga wadani ee mucaaradka waxaan kugu taageerayaa himilada iyo dhaqaaqday iyo awoodda iyo maslaxada Afrika galbeed oo dhan aad soo martay aad ku amaanantay madaxweyne waxaan kugu amaanana oo kugu raacsanay oo naan kullaba ka hadhin geesinimada aad ku hadashay xalay toole taasoo aan afkaan ka hadlayna oo qalinkaan ka hadlayna oo haday labadaas suuragal waan cududaan ka hadlayna aniguna cududii waan iga muujinay waan iga maanta qalabkaygiista madaxweyne ninkan madaxweynaha sheeganaya ee ku jira containerka ee lagu ilaaliyo isaga naagtiisa xerada UNISOM xerada lagu ilaaliyo ee aan mar raba amisom ee xerada lagu dhex ilaaliyo ee aan dibadda arki karin horta banaanka ha soo baxo sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa dhex lugeeyay haduu ru sheegayo hadii kala beenta caalamka ka daya beenta looma baahna been madaxweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay guulayso waan kugu taageersan Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax Bulsha TV magaalada